wafdi ka kooban xildhibaano iyo wasiiro kala matalayay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Hirshabelle oo uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle kana soo kala jeeda beelaha Makane iyo Jijele oo ku dagaalamaya tuulooyin dhaca gobolka Hiiraan ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ujeedada safarkooda ayaana gundhig looga dhigay ka qayb qaadashada nabadeynta beelaha dagaalamaya ee Makane iyo Jijele iyo xal u helidda unkankoodii dagaal. gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda maamulka gobolka Hiiraan ayaa uga mahad celiyay wafdigan gaaritaankooda Beledweyne. wasiirada dowladda federaalka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada Beledweyne maalmahan waxaa ka jira dagaal beeleedyo oo dhowr dhinac ah. waan idinku mahad celinaa xaqiiqdii inaad nagala soo qayb gashiin oo maaragtay culeysyada jira aad nala xalan doontiin on maaragtay aan ku guuleysan doono waan rajaynaa hadduu Ilaahay yaraha. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa labada beel ku yiri ulajeedka ama hadafka safarkeenana uu yahay shaqaaqooyinkii iyo dagaaladii ayaan darrada ahaa ee foolxumada ahaa ee magaalada Beledweyne maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay dhaxmaray dad walaalo ah ehel ah xigta ah xigaalo ah arrinkaas ayaan damqashadiisa darteeda ayaan u soo dhaqaaqnay. waxaan rajaynaynaa juhdigii iyo dadaalkii horay u jiray maamulka gobolka iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka Hirshabelle iyo xildhibaanada Hirshabelle iyo maamulka gobolka Hiiraan ay horay u wadeen ayaan rabnaa inaan beerino. wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Yuusuf Gamaadiid ayaa sheegay in beelna beesha kale ayaan ka ciribtiri karin deegaanka xal wax dhaamana uusan jirin. waxaan marka rabnaa inaan baaqalkan ugu jeedino una nimid walaalaha dagaalamayo ilaahay inay ka cabsadaan dad muslimiin aan leeyahay. waxaan ogaataan taariikhdana dib loo baaray aad u baartaan dad meeluu ilaahay ku makaniyey mid kale ka suulin kara ma jiro. waxa marka adduun iyo aakhiradiina ay ku jirtaa waa walaalnimo iyo maxaan ku rahdaa iskaashi iyo in aad danihiinna iyo horumarkiinna aad isu kaashataan. waxaadna ogaataan inaad tihiin isma hurto. soomaaliduna waxay tidhaahdaa isma hurto ha ishallayn. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdulfataax Qaasin ayaa Makane iyo Jijele ugu yeeray nabad iyo wada noolaasho. waxaan kaloo rabaa inaan cadeyno ujeedkeena inuu yahay dadaaladii walaalaha ay wadeen iyo gudiyadii jiray ee looga gal lahaa in dib u heshiisiin la dhaxdhigo walaalaha dagaalamay inaan arinta iyada qaybta nooga aadan ka qaadano. waxaad tihiin dad walaalaha mar waxaad walaalo ku tihiin islaamnimada mar waxaad walaalo ku tihiin Soomaalinimada mar waxaad walaalo ku tihiin Hirshabelnimada mar waxaad walaalo ku tihiin Hiiraannimada mar waxaad walaalo ku tihiin reer Beledweynenimada marna dadka kale waa isaga sokeesaanoo xigaal iyo deris taariikh ahaan iyo deegaan ahaan ayaad isu xigtiin. waa ayaan dara marka annagoo intaas dhaxal haysana maanta inay xabad dhacdo. maleeshiya beeleed ku kala abtirsada beelaha Makane iyo Jijele ayaa isku hor fadhiya duleedka degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay uu dhex maray dagaal dhimasho iyo dhaawacba dhaliyay sidoo kalena lagu kala gubay tuulooyin dhowr ah. Cabdishakuur Shashaa, warbaahinta City, Muqdisho.